My main worry is that these misinformations could lead to an unnecessary outbreak here again in the UK. My name is Dr. Aisha Hassan. Primarily, I am a full-time mom, professionally an immunologist, and personally a humanitarian at heart. MMR vaccine waa talaalka lagu siinayo. So MMR-ka M-ka ugu horeysa waa measles, jadeecada, mumps, qaam qashiirto, iyo rubella, jadeecada Jarmalka or German measles. What we do is we equip the parents with enough knowledge and information so that they can then go off and make scientifically evidence-based informed decisions for their children. We do this through providing workshops and intimate sessions. The Somali version of what the, for example, NHS kasuma dhibto warqad oo MMR-ka ku saabsan, tan hadda waa talaalka markaa warsatid ma ku faahfaahinayo even balana lagu dhigaya yunab wuxuu ka talaalaya ma taqaanid cunugii kan baa lagu leeyahay waa la talaalaya maxaad ka talaashay cunugii waa inuu qofka. When it comes to the current healthcare information available, it is not appropriate for the Somali as well as ethnic minority communities, especially here in Birmingham. For instance, we have the language barrier, the cultural differences. anaga marka ilmaha geeyno waxana la leeyahay maxaa u geyseen maxaa ugu irbada ugu mudeen ilmuhu wuxuu ka noqonay autism yani waxa nagu jirta cabsi badan waxa igu dhacday marka baaranayaan ilaaliyo ilmihii hadda scientist abtahay wixii maxad rabtaa facts evidence yani ani wax cabsi iyo ma ku shaqeyn kari qofkii waxaas la soo baxay intaas soo warqado kale taa soo baxeen disproving. والد ilmahooda yani go'aan u qaadanin waa muhiim inay fahmaan waxa faktka ah iyo waxa cabsiga ah. Problemka waalidkii luqadda ma wada yaqaanaan qofkana luqadda aqoonta Soomaali ahaan wuxuu isku qabaa qof aan waxba baranin. What worries me the most is that when I do go on social media there is a lot of information that's out there about MMR vaccine only talks about the negative effect of the MMR vaccine. When it comes to the Somali community, it's essential to now take action in terms of closing this gap of mistrust between our communities and the healthcare providers. I mean, from the focus group today, one of the main key messages that we have received that resonated with all of us was there isn't enough information available that we can understand. The bottom line is knowledge is power. And if we want to engage our communities when it comes to vaccinations, then we have to take the initiative to empower our communities through knowledge.